inkastoo aysan taliya fahad dhihin taliyayaashu hay-adana marka laga reebo hadday taliyaha ugu sarreeyo Soomaali inta badan qofkay arkaan taliya iska dhahaan ama taliyaha gobolka inuu ahaa waa suuragal taliya fahad inuu ahaa waa suuragal taliya ku-xigeenada inay ahaayeen waa suuragal laakiin hooyadeed waxay u sheegtay in taliyaha uu u wacay waxay kaloo hooyadeed la wadaagtay ikraan inta aan la weynin ka hor in uu taliya fahad uu yiri ha bixin agagaarka meelahana ha ka fogaanin ayadana ay xogtaas hooyadeed la wadaagtay tiri hooyo taliyaha sidaas uu yiri ha bixin uu dhahay maalinka uu taliyaha ha bixin dhahayo waxay ahayd ikraan 25 June maalinka ikraan la weynaayana waxay ahayd 26 June habeenkii xilliga ahayd maalinka uu taliyahaas uu la kulmaayo taliya fahad oo uu dhahayo gabadha ha bixin maalinkii isla maalinkii uu baxay uu diyaarad raacay fahad habeenkina waa la waayay marka maxaa kulmiyay in uu fahad dhaho joog gabadhii inuu la hadlo uu dhaho aagaan ha ka bixin agagaarkan ha ka bixin iyo in gabadhii la waayo within 24 hours gudahood la waayo maxaa kulmiyay maxaase kulmiyay in hadda marka warkan la faafinayo uu haddana fahad uu dalka ka maqan yahay habeenkaas aad sheegayso horta waddankaani ma joogin dalka waa ka maqnaa anigoo maqan bayna waxaa dhaceen